xogayaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin oo kamid ahaa wafdiga Jubbaland uga qayb galay shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka oo maanta dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya kana soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho isla markaasina markii uu ka soo degay garoonka ay halkaasi ku xanibeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayna ka qaadeen baasaboorka diblomaasiga oo inta badan ku mari jiray dalalka caalamka taas oo keentay in markii dambe dadaal ay sameeyeen madax isugu jiray heer federaal iyo heer dawlad goboleed lagu guuleystay in laga fasaxo isla markaasina uu dib uga soo dhoofay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa galinkii dambe ee maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan rugta ganacsiga Jubbaland xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweynta gudoomiyaha kadib ayaa waxa ugu horeyn warbaahinta la hadlay xildhibaan Culujoog oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland waxaana uu dawladda federaalka ee Soomaaliya uga digay in ay ku qaldanto muwaadiniinta Soomaaliyeed si xun ay la dhaqanto hal waxaan leeyahay shilkaas xamar ka dhacay dawladda federaalku ha ka fiirsato waxyaalaha khaladaadka ee dhacaya ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ku dhacaya ee dukumeentiga Soomaaliga wadata wixii khaldamay wixii laga sixi karo ayadoon xanaf loo yeelin oo fiirsho kale loo yeelin hal loo yeelo oo hal la saxo hal la hagaajiyo ummadda Soomaaliyeedna dawladda federaalku ku dadaasho inay isu keento in maanta xanaf iyo isxagasho iyo isqaqabsi iyo wax la kala tirsado in laga gudbay ahayd oo ay dawladdu dadka isu keento ay isu timaado Soomaaliya dhul isu kala isu hubiyo in maanta la dhaho dadkii la dhaho gobol hebel buu ka meel hebel ka yimid ma qurux badna waxa qurux badan muwaadinku inuu dareemo inuu calankiisa iyo dalkiisa hoos joogo oo yimid Soomaali waa dad yar oo laangaaba 14 milyan ama 15 milyan dhan weeyaan hal magaalo adduunka ku nool yihiin dadkaas oo kale ay xukumaan waxa weeye mas'uuliyadeeda waa in la qaato wixii khaldama waa in dawladdu ay saxdo oo ay raali gelin ka bixiyaan saraakiisha waxa sameeyay oo dadka ku khaldamahaya saraakiisha ama madaxa sarsare midna waxa leeyahay reer Jubbaland dawlad iyo shacabba waxa khalad inagu dhacay aan qaadano aynu nabad ku bedelano Shaafi Raabi Kaahin xogayaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen saaka 2 saac iyo waxaan magaalada Xamar nimid qadar daqiiqada markii runtii airportka aan ka soo degay airportkan ka duulayay aan ka soo degi jirayna uu ahaa baa dhacdo yar ay ila kulantay dhacdadaasna fasirka ugu fiican in la saara baa aniga ay muuqataa fasirka ugu fiican waxa weeye wax iska sudfa u dhacay oo accident ah oo dhacay taana waxaan ugu fasirayaa madaxdii dalka siday u dhantahay hadii laga bilaabo iyadoon uga mahad celinayo dawladda Jubbaland madaxweynaheeda iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada wasiir Darwish iyo Gaani iyo wasiir Awxirsi iyo Fayruus iyo wasiir Axmed Siteen yaani reer Jubbaland oo dhan haday noqon lahayd saraakiisha amniga Khalid iyo Fanax iyo kulli xildhibaanada runtii saacadihii yaraa ee meeshaas aan baasaboorkan laga haystay aan xorriyadeeda la qaaday ay ila hadlayeen iyo dawladda federaalka oo runtii madaxda haday sanatarada noqon lahayd ra'iisul wasaare hore Cali Maxamed Geedi haduu noqon lahaa taliyayaasha ciidamada iyo markii dambe labada xafiis ee dalka laga xukumo xafiiska madaxweynaha oo ila soo hadlay agaasimaha Injineer Cabdirasaaq Shoole oo runtii arintan ayada iga tacsiyeeyay soo magaca madaxweynaha ku hadlaya iyo xafiiska Prime Ministerka oo ula soo hadlay kadibna waxa ay yimid taliyaha jinsiyadda socdaalka Soomaaliyeed saaxiibkay Kofi oo runtii aad iyo aad si aan jeclaystay iga tacsiyeeyay wixii dhacay igana codsaday in xafiiskiisa aan tagno marka waxaan accident u leeyahay anu wax ka dambeeyay ma garanayo laakiin waxa Soomaali maanta u yaala inay kor loo raro oo la bomboniyo
wax macno hoy samaynaysaa ma jirto dalkan dhibaato adag baa u yaala waxa arrintan hadda gacanta ku haya gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo arrinta saaka hawl badan ka galay waxa ka shaqeynaya oo ku jira madaxweynaha Jubbaland waxa ii yimid oonan marna ilaaweynin madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo.